السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم. سيليها أصحابتا ورا حال الدين أنا وفي عنها الحمد لله. هذين كانوا حارجينا هنا في عنتهن سو دواذا ما أنت فلوق ديرا مشان كوهنا مالن سونك كهري iyo maalintii soonka oo isku jir ah waaye marka waxaan rajeynaa ilaa dhamaadkiina ila joogdaan insha Allah. marka maanta meeshan waxaan soo aaday meel oo maacuun iyo waxaas maacuun yar aan ka rabay. marka alxamdulillah hadda waa nabad imaan meesha u socday. waxaan soo aaday Garden City Panda maanta soo aaday oo weelal yar ka rabay, weelal qurqurxan aan ka arkay online-ka. marka waxaan aaday bal soo tijaabi wixii meeshaas yaal haday ku anfacaan asxaabtaadana bal la wadaag. marka wuxuudana saas qaali zaaid ama ahan raqiis zaaid ahna ma ahan, waa dhexdhexaad. marka meeshaan soo galnay waxaan ka rabay meeshaan galaaso iyo weelasha yaryar oo macmacaanka iyo waxaas lagu sameeyo. marka waxaan ku yiri meeshaan dooq wareer kugu dhacay si uu intee maasha Allah waxaan oolin malahan design walba yaalo. marka waxaan rabay waan ka soo qaatay meeshaas gadaal baan ka tusi doonaa insha Allah. hadana qaybta waxaan soo galnay saxamaha, sidoo kalena saxamaha maasha Allah ayu nooc ayu design yaalo. qaalina ma ahan saxamahooda midka ugu qaalisan 280 waaye. marka nooc walba yaalo meeshaan ayadana saxamo iyo wixii aan ka rabay ayagana sidoo kale waan soo qaatay. midkaan yarka aan ka helo qurux soo maahano kadib wixii aan uga baahnaa meeshaan ka soo qaatay. hadana halkaan aan soo galay meeshii iigu muhiimsaneed meeshaan soo aaday weelashaan ay ahayn ovenka. weelasha ovenka iyo aniga isma arki karna il ay aragtiya naga dhaxayso. marka laba weel ayagana ka soo qaatay, midkaas cagaarka ah iyo mid kale aan ka soo qaatay waa idin tusi doonaa. qaalina ma ahayn walaahi marka meelaha kale loo fiiriyo zaaid ay raqiis u ahaayeen. kuwaas gaduudan oo sharaxaad la rabaa laakiin waa u soo laaban doonaa insha Allah. kadib hadana meeshaan aan soo galay oo digsiye waa haystaa laakiin digsiga ugu weynkan ku xigo bahalkiisii daboolkiisii ayaa iga jabay. marka maadaama aan digsiyada dhan wada gadin karin hal digsiya meeshaan ka helay. kan qurux soo maahan oo shaaha lagu karsanayo. hal digsiya marka meeshaan ka soo gatay oon u baahnaa. kadib qaybtaan aan soo galnay waxyada artificial-ka ah, waxyadan dhaadheer oo waxaan u baahnaa hal xabe iyo mid yar. marka labadina waan ka soo helay aad bay u qurux badnaayeen wax meeshaan yaala. kan iyo mid kale aan soo qaatay. kadib isdaba wareeg badan kadib oo meesha aan waqti badan ku jiray midna qaad midna dhigsa ugu jiray. markaan waa mar aan soo bixi rabeen wixii u baahnaa dhan aan soo helay. meesha waxaan raadinaya markaa ugu dambeyso table mat, marada oo miiska la saaran raadinaya online-ka ka arkay ayagoo meeshaan ka dhaxaysiinaya ayagoo qurqurxanaya yaalay. marka hadee meel bataa marba u galay waan waaye. mar dambo baa nin baan arkay ninkii iri war ii sheeg hageen ka helaa table matka. wuu ii tilmaamay meeshaan ka helay. meeshaan tagay meeshaan taagnaa iyo meeshaan tagay walla socod dheer buu ahaa zaaid u kala fogaana meelaan ku wareeganaa meesha ma bahaynba. kadib waa kana anigoo meesha imaado maxaan dhahaa weelashi la ii xisaabinayo intaas ahayd. intaas soo qaatay weel badan ma soo qaadanin maadaama aan soonkii hore weelal badan ii yaaleen. marka alxamdulillah waan soo baxay wixii aad meeshaan isku dardar waxay isku noqdeen 7,000 iyo jajab. kadib meeshaan aan imaaday waxaan u baahnaa avocado iyo cambo iyo waxaan u baahnaa qaro. meesha meel cagta la saar ma lahayn aan ku dhahay labada maalin soonka horreysay ahayd mise maalintii hal maalin ka dhinaa soonka maalintan cagta meel la saar ma lahayn hadii aan lagu taraarin alxamdulillah. qarahina waa kana qaraha marka 4 xabaan soo qaatay. marka cambihiga avocado soo qaatay ninka waxa ku dhahay abuu furfur meeshaas ka jeexa arkay maku aaminayo jeex kulli 4 xabo wuu ii jeexay kulli waan wada aragnay. marka faa'iido ku jirta hadda midkan saddexaad oo kale uu hadda uu ii jaraayo. markuu jaray wuxuu arkay inuu haleysan yahay anisaas ku soo qaadanaa korku qurxan yahay ogaan lahayn. marka meesha wixii inaan soo qaatay dana meeshaan ay imaado wax oo shaaha iyo bariiska ku carfsadaan soo doontay. alaabtaan dhan soo qaatay qurux Soomaaliya soo taalo maasha Allah aad ay u qurux badan tahay sida loo design gareey. kadib hadana halkaan ay imaaday salar cagaar aan u baahnaa soo qaatay. kadib dhinaca kale aan aaday caanaas meeshaas aan tagay waan ku soo caanaas aan soo qaatay iyo liin macaan iyo basal way ii taalay wax yar oo kale yaan ku darsaday. xaafadii orod ku imaaday weelasha waa kuwana marka maxaan dhahaa abriiqaas yarka weelasha ovenka labadaas xabo waa midka soo qaatay. green oo qabina soo qaatay cagaar ma ahaya cagaarka oo qabina soo qaatay. weelasha adi cala kulli xaal oo kuwan ayagoo dhameystiran bahalka idin sheegayo cagaarka ahna waa kaasa
oo maxaa la dhahayo markaas jikada geeska dhigatid qurux waay. kadib meeshaan fridge-kii la bilaabay maadaama lasoo adeega hadee in oo la dhaqo waay fridge-ka wixii dhan lagu guro. ani waxaa ahayd dadka maalmaha u horeyso oo soonka uu bilowdo jadwalka dhana iga halaaba maadaama jadwal hore aan kusoo socday iyo jadwalkan cusub isma laha, marka process ay ugu qaadanaya. marka waxaa ku qasbanahay in wax walbo ayagoo diyaar ah oo maalintaas liiga sugaya inaan afur bes kariyo in ramadaanka lagu gaaro, haddii kale wax badan baa halaabaya. marka waa kan anagoo fridge-ka soo dhaqnay soo hagaajinay alxamdulilah, alaabta dhan kusoo gurnay, cambihii, qarihii, hilibkii, cananaaskii. meesha waxaa ka maqan avocado-dana mid karsan waan soo waanay, wax dhan ayagoo karsan intaa soo gato oo wada jarjana fridge ku guraa. marka meel baa iska dhigan, waxaa waagay karto ama halka xabo karaba sii qaado ama markay wada karto bad ayadana fridge-ka ku guro biidinillah. marka maalintii soonka horeysa intaas ay noogu ekeed. subaxii soonka waa kana alxamdulilah, ilaahay acmaasheena ha aqbalo. mar labaad ramadaan kariim. marka halkaanaan ka bilownay subaxeeni kastaraan soo kariyey, weelasha aan soo gatay waa kuwaana oo aan u rabi kastarka waxaas inaan ku shubto sooma qurxano, ani kulley waa ka helay. marka meeshaan waxaan kusoo shushubay chocolate syrup-kaas meeshaas yaalaan ku shushubay dhalooyinka si uu flavor yarna ugu yeelo. weelkana markii kastarka bes lagu shubay iyo markii hadda chocolate-ka saas lagu dhexdhexay kastarkana lagu shubay indhaha saana u roon oo qurxan, marka la cunaayana flavor yar oo macahu leeyahay. marka waa kana anagoo wixii dhan soo diyaarinay fridge-kan gelinaynaa. markaan aan fridge-ka geliyay adigu wuxuu ku jiray markii maanta la afuraayay almost 6 hours uu ku jiray. kadib hilibka digaaga waa kana aan soo diyaarsaday. qofba hadii digaaga sibuu u samaystaa, ani wixii carf oo dhan aan kusoo daray 2 saacadood aan meel dhigay. kadib oven-kaan rabaa inaan geliyo, waana ceyriin biyo iyo waxba kuma soo karinin, saacad ilaa saacadii baraan u deynayaa. bahalkeesoos isku dhex galo waxaan ku yiri kaal iska argaa kasoo baxayo. barandhii, kaarood, yaanyo ayadana flavor yar u yeelisaan kusoo kordaray. kadib waxaan kaloo kusoo daray daaniyo yaraan sharaxaad iyo qurux ayadana dhadhan yar u yeelisa. inkastoo hore daaniyo iyo kabs iyo mint iyo toon iyo sanjabiil waxaasoo dhan aan kusoo daray. hadana markaas uu qurux badan yahay. markuu karaa ka daran sidii uu qurxan yahay waa kana soo karan indhuhu saas uga qurxan yahay markii la cunayo maxaa moodaa. marka haddana waa kana rootigan soo diyaarsaday. rootigan 2 saxan u ahaa, halkan saxan aan duubay. oven-kii sidiisu karkarayaan ku yiri oo la daminin baan dalaq siiyo. waxaan ku dhahay walaa wuxuu ku karay 15 daqiiqo gudihiisa rootigaas kusoo karo uga soo baxay. haddana meeshaan bariiskeena soo karsanaynaa, basal iyo kaarood iyo caraftii oo dhan, heel, qolfo, wixii oo dhan aan kusoo daray. qofba hadii bariiska siba u karsadaa, ani sidaan u karsaday bariiskaygaan kusoo darsaday. markuu isku huuro kadib waa kana anigoo qaleynaya intaan biyo ku darin biyo kululaan kusoo daray. marka alxamdulilah ramadaankeena shala maanta iyo shalay ii kala fududiyay, shalay ila cuslaa leanna wixii dhan baa bilow ii ahaa dad badanna maadaama aan afurinayo. waa kana marka cuntadeena ayadoo diyaar ah, anigana afurkayga waa kana halkaan aan kusoo diyaarsaday. maalin dheer kadib alxamdulilah guriga anagoo iska kala hagaajiyay, jikadayda nadiifiyay ahayd, wax shaqaa ii oolin. halkaan iska soo fadhiisan. ninkan barnaamijkan Fahad Alkandari aad u dhageystaa ramadaan walbo, maasha Allah laga faa'iideysto haddii jaanis lahaayo. marka hadee bye, comment, subscribe, like yaa nagala iloobin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi.